magacaygu waa Liibaan Mahdi Axmed. waxaan ka tirsanahay shaqaalaha Samnet. doorka aan shirkadda ku joogo waxa waaye products and research section. sidoo kale waxaan ahay acting deputy oo waaxda marketingka. haddaan markaa u guda galo tababarkii eedanoo sameysay Arkaan Leadership Academy, wuxuu ahaa tababar aad u qurux badan. waxyaabo fara badan naga caawiyey. waxaan ka baranay in maxaa la yidhaahdaa KPIs-ka ugu muhiimsan qof walba uu target gareynayo inay noo cadaado. waxaa kaloo aan baranay in problem solving-ka iyo steps-ka loo maro inaan barano. waxaa kaloo baranay authority, macnaha in shaqada qof ay u hayrnaanin oo qof kasta taskiisa si loo cadeeyo, authority la siiyo, commitment la siiyo oo competency-ga oo shaqadii awoodda ku qaban lahaay, kadibna lagala xisaabtamaa performance-giisa. waxaa kaloo meeshaan ka baranay in mar walba dadka maamulka u baahan yihiin report kooban oo concise ah, lana socoto aaraahda iyo aragtida ka qabto reportkaasi inaa maamulku sheegto. marka wuxuu ahaa tababar dhan walba dhammaystiran oo aad u qiimo badan. aan isku dayi doonaa insha Allah tacaala in aan si practical aan u apply gareeyo. Arkaan Leadership tababarkeeda maxaa ku qiimeyn lahayd? ana ahaanteeda waxaan sii lahaa 10 of 10. waxyaabaha ku siin waxaa ka mid ah qaabka wanaagsan ee noo soo diyaariyeen resource-yada oo kuwa mar walba ay ahaayeen kuwa oo anaga nagu habboon, qaabkina ugu soo bandhigeen environment-iga aan wax ku baranaynay, sidoo kale macallimiinta oo mar kasta noo imaanayay oo ahaa macallimiin aad u diyaarsan, waxay ka hadlayaan aad u fahansan oo maxaa la yidhahdaa communication-kooda iyo qaabka wax dadku wax ugu dhaadhicinayaan ahayd kuwo heer sare ah oo si fiican loo soo agaasimay. koorsada intaa qaadaneen 4 maalin all of them waxa laga hadlayaa waa experience aad u sareeyo. laakiin ana ahaanteeda haddii waxyaabaha sida khaaska ugu faa'iiday aan sheego oo aan kusoo koobo ilaa dhowr qodob, waxaa ka mid ahaa maadaama hadda aan ahay managers ka mid shirkadda, in mar kasta oo leadership wanaagsan la yimaado performance-ga iyo waxqabadka shaqada iyo company-ga weyna si qurux badnaan doonto. waxaa kaloo baranay mar walba shaqaalaha naftirkooda in authority-gooda loo sheego oo maxaa la yidhahdaa waxyaabaha qaar escalation ku sameynin oo maxaa la yidhahdaa waxay qaban karaan qabtaan. waxaan kaloo baranay in problems-ka iyo reports-ka laga hadlayo qaab wanaagsan oo kooban oo maxaa la yidhahdaa heer sare ah, la socda recommendation-kii iyo options badan in maamulka uu gudbino oo waqti badan aan ka qaadin doonin inay aqriyaan fahmaan. Team Arkaan aad mahadsantihiin. waxaa la imaadeen innovation fiican oo lagu horumarinayo bulshada qaybaheeda kala duwan, haddii noqon lahayd ganacsiyada, xafiisyada dowladda, meel walba oo bulshada ka mid ah. anaga team ahaan Samnet ahaan aad kaga mahadcelinaynaa maadaama nasiisaan tababar aad u qurux badan. mar walbana waxaan jeclaan lahayn insha Allah in aan meesha kasii wadaan horumarinta iyo adeegyada u heesaan bulshada.